intii u dhaxaysay 1978 iyo 2001 ugu yaraan 65 haween ah ayaa lagu waayay downtown Eastside. Robert Picton oo ka shaqeyn jiray beer doofaar ah oo ku taal meel u dhow Port Coquitlam ayaa lagu soo oogay inuu dilay 26 haween ah. Waxa lagu xukumay 6 eedemood waxaana lagu xukumay xabsi daa'in. Wada hadal qolka jeelka ah uu la yeeshay sarkaal boolis oo qarsoodi ah. Picton wuxuu ku andacooday inuu dilay 49 haween ah. There are more questions tonight about how police in British Columbia handled the Robert Picton investigation, this time prompted by the release of video at the Missing Women's Inquiry. It's from January of 2000, 2 years before the pig farmer would be charged with murder. Already the leading suspect in the case of Vancouver's missing women, it was a relaxed Robert William Picton who sat down with police. Dilalku waxay horseedeen baaritaankii ugu weynaa ee dil taxane ah ka dhaca taariikhda Canada. Beerta Picton waxay noqotay goobta ugu weyn ee dambiyadu ka dhacaan taariikhda Canada. Halka kiiskiisa uu noqday barta guud ee ugaasashada haweenka. Robert William Picton wuxuu dhashay 1949. Wuxuu ku soo koray beer doofaar qoyskiisu lahaayeen oo ku taal Port Coquitlam. Picton iyo walaalihiis waxay iibiyeen inta badan hantidii loogu talagalay horumarinta magaalooyinka, taas oo ka dhigaysay beerta 6.5 hektar. Picton wuxuu ka hayay hawl yar oo xoolaha ah inuu xoolaha beerta u raaco. Waxa kale oo helay qayb ka mid ah dakhligii ka soo baxay macaamilidii guryaha uu kireen jiray. Picton wuxuu ahaa nin bulsho ahaan aad u xun oo caan ka ah inuu soo bandhigo dhaqamo yaab leh. Wuxuu kaligiis ku noolaa guri ku yaala beerta. Sanadii 1996 walaalaha Picton ay bilaabeen jaaliyadii Beaches Place Good Times Society. Waxay ahayd hay'ad samafal ah oo ka diiwaan gashan dowladda federaalka oo leh awood sheegasho oo ku ururiyaan lacag inay lacagtaasi ku sameeyaan qoobka ciyaar, jaasas iyo waliba wixii la mid ah. Dariska ayaa ka cawday isku dhac daroogo, sarqaannimo iyo buuq. Xafladaha waxaa ka soo qayb geli jiray dad gaaraya 1700 oo qof oo ay ku jiraan rookayaal iyo shaqaalayaal. Sanadii 1978 wax ka tirsan booliska RCMP ee ka tirsan booliska Tasks ayaa bilaabay isku dabaridii liiskii haweenkii la la'yahay. Kiiskii ugu horeeyay ee liiska ku xirnaa Picton wuxuu ahaa kii Diana Milnek markii ugu dambeysay la arko 22 Diseembar 1995. Picton laguma xukin dilkii Milnek. Kiiskii ugu dambeeyay ee liiska ku xirnaa Picton iyo mid ka mid ah 6 dil ee kaas oo lagu xukumay wuxuu ahaa kii Mona Wilson markii ugu dambeysay la arko November 2001. 26 ka mid ah oo si rasmi ah loo waayay Picton. Mid baa dhacay 1995, mid kalena wuxuu dhacay 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 iyo 2001. Meelaha kale ee la waayay ka hor iyo mudnaan si rasmi ah laguma xirin Picton cadeymo la'aan awgeed. qaar badan oo ka mid ah haweenka la la'yahay sidoo kale waxay ahaayeen asal ahaan markii ay soo ifbaxday kiiskii Picton. Dhibanayaasha badan oo ka cabanayay Picton waxay diiradda saartay dareenka dadweynaha ku saabsan arrintan ballaaran ee maqnaanshaha iyo dilalka dumarka iyo gabdhaha asaliga ah ee Canada. Tanina waxay horseeday baaritaan dowladeed oo qaran oo lagu sameeyay arrinta laga bilaabo 2016. 22 Maars 1997 haweeney Picton uu geeyay beertiisa ayaa la dagaalantay markii uu isku dayay inuu katiinadeeyo. Waxay qabatay mindidii halkii ayayna isku geliyeen labaduba waxay heleen dhaawacyo mindi oo halis ah. Haweeneyda ayaa orod ku tagtay wadada. Waxaa loo qaaday isbitaalka. Intii ay haweeneydu ku jirtay qaliin degdeg ah, Picton waxaa lagu daweynayay dhaawaciistii. Picton waa la xiray waxaana lagu soo oogay isku day dil, gacan ka hadal, hub iyo xabsi khasab ah. Waxaa la joojiyay. Aakhirkiina waa la tuuray maxaa yeelay haweeneyda oo magaceeda la geliyay ilaalinta mamnuucista. 1995 nin xog ogaal ah ayaa booliska u sheegay in hooyo kaligeed ah iyo daroogada cunisteeda oo la yiraahdo Lane Edingson ay arkeen mid haweeney oo suran kawaanka Picton. Markii ay su'aalo weydiiyeen biliiska, Edingson markii hore wuu diiday sheekada kaligii. Markii dambe wuxuu qirtay in 20 Maars ay dhab ahaantii aragtay meydka iyadoo ma aysan soo sheegin sababtoo ah waxay ka baqaysay Picton.
Picton waxaa loo xiray eedeymo hub kadibna waxaa lagu sii daayay damaanad. Waxaa lagu ilaalinayay ilaalada loomana ogoleen inuu ku laabto beerta doofaarka, halka booliska ay sameynayeen baaritaan buuxa oo ku saabsan beerta. 2007, Picton waxaa xeerbeegto ka helay dambi ku saabsan 6 dambi oo dil ah. Waxaa lagu xukumay xabsi daa'in, xabsi dhexe oo federaal ah, iyadoo aysan suurtagal ahayn in lagu sii daayo 25 sano. Xukunadaas waxaa taageeray maxkamadda sare ee Canada sanadii 2010. Inkasta oo Picton uu sheegtay inuu dilay 49 haween ah, waxaa lagu eedeeyay oo kaliya dilal 26 ah oo lagu garan karo caddayn laga helay beerta doofaarka, oo lagu daray haweeneyda aan la aqoonsan oo meydkeedu sidoo kale la helay. Dacwadii Jane Doe aakhirkii maxkamaddu waxay baabi'isay sababtoo ah xog la'aan ka haysata aqoonsigeeda iyo waqtiga ay dhimatay. Kadib markii Picton lagu xukumay 6 dacwadood, maxkamadayntii ugu horeysay dacwad oogayaasha British Columbia Crown waxay siiyeen inay furnaadaan suurtagalnimada in Picton lagu maxkamadeynayo 20 dacwadood oo kale taariikh dambe. Si kastaba ha noqotee, 4 Agosto 2010, dacwad oogayaashu waxay ku dhawaaqeen inaysan ku sii socon doonin 20 dacwadood. Waxay yiraahdeen maxkamad labaad xitaa haddii xukunno dheeri ah la helo, waxba kuma soo kordhin doono ciqaabta Picton, taas oo markii horeba ay ahayd tan ugu macquulsan ee sharciga. Go'aankan ayaa ka caraysiyay qaar ka mid ah qoysaska 20kii dhibane. Qaar kale waxay yiraahdeen way ku nasteen markii laga dhaafiyay khibradii tijaabo, waxaana lagu eedeeyay 2 dambi oo dil ah. Ugu dambeyn, 26 eedeymo dil ah ayaa ugu dambeyntii lagu soo oogay isaga intii uu Picton ku jiray xabsiga magaalada Surrey, British Columbia. Wuxuu qol la wadaagay sarkaal qarsoodi ah oo ka socday booliska RCMP. Wadahadalkooda, Picton wuxuu sheegay inuu dilay 49 haween ah, uuna doonayay inuu ka dhigo 50. This tape is now public because it's evidence at this judicial inquiry, trying to find out whether police should have arrested Picton earlier. During the interrogation, investigators asked